qaar badan oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya siyaasiyiin waxgarad haweenay ururo ka shaqeeya horumarinta bulshada ayaa ka soo qayb galay kulankan looga hadlayay hirgalka dastuurka ee qaabkii loo soo xuli lahaa xildhibaanada cusub oo bedeli doona kuwa hadda jira. wasiirka dastuurka dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh oo goobjoog ka ahaa doodan lagu gurfeenayay qaabka lagu hirgelin karo dastuurka ayaa waxa uu sheegay in xilligan shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay garab istaagaan meelmarinta dastuurka qabya qoraaleedka iyo weliba qaabkii loo soo xuli lahaa hogaamiyaal wanaagsan sida uu sheegay kuwaas oo odayaasha dhaqanka laga doonayo inay doortaan xildhibaanada soo aadan. waxaana uu sidoo kale intaasi ku diray in haweenka qayb lixaad ay ku yeelan doonaan dastuurkan hirgelintiisa kadib xildhibaanada baarlamaanka. 67.5 almost 68 waa marka hawsha oo taala marka waxa 68 kaas in la make sure garay inay noqdaan dumar waa waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo Cabdullaahi hadaa yiri tala idinka baahana talada aan soo jeedinayno waxa mar dhow waxa bilaabanaya in la soo xulo baarlamaankii waxaan ku heshiinoo leeyahay ninka ahaa oday dhaqameedkii ayaan u dhaafin talada waxaan soo jeedinaynaa annaga haddaan rabno waddanka inuu ka baxo problemkan 20 sano soo jiray professor cali khaliifna hadhowdii councilkiisa waana siin doonaa oo siyaasadda wax badan ku soo jiray yacni waxaan xal u aragnaa in haddii aan helno 225 oo 68 ay yihiin dumar oo laakiin quality leh oo dad nabad jecel ah oo cilmi leh oo khiyaar ah oo mataqaanaa rabaan in wax la sameeyo wax wanaagsan ka soo baxaan in boqolkiiba 50 dhibaatadan haystay naga baxayso marka midda noo taalo adinku waan meen waxa waa qof walba oo maanta wixii ka dambeeyo oday dhaqameedkiisa inuu inta farqa ku dhaw inuu yiraahdo maanta waxa ku taalo talo weyn oo ah inaad Soomaali weyn u helisaa qabiilkiina u helisaa labadaas waxa uu yeelin kartaa adoo soo dira dadkii ugu nabad jeclaa ugu fiicnaa ugu cilmi badnaa ugu khiyaarsanaa inaa u soo dirtaa baarlamaanka soo socda iyo in la ka ilaaliyana in odayaal dhaqameedkii aan la korrabti garaynin. madaxa bariga Afrika ee hay'adda IDLO oo qaabilsan horumarinta sharciyada caalamiga mudane Shirwac Maxamed Jaamac ayaa waxa uu sheegay in qaabinta kulankan ay kaga gol leeyihiin in shacabka Soomaaliyeed ay ku fahmaan waxa uu dastuurku yahay. oo talaadaha halkan waxaan isugu nimaadnay in lagu garfeeyo arrin runtii aad muhiim uga ah Soomaaliya oo idil Soomaalida waxa weeye misaladaasi xaaladda kala guurka waxa shirkan isugu yeeray oo qabtay wasaaradda dastuurka arrimaha dastuurka iyo haddii ilaahay idinkiisa ka dhigayo dibishisiinta International Development Law Organization shirka waxa looga hadlayo runtii masaa'il aad u fara badan weeye laakiin waxa ugu dooron sida loo soo xulayaa odayaasha waxaas oo dhan waxa ka warbixiyay wasiirka dastuurka iyo wasiirka kale qorsheynta Cabdullaahi Goodax runtii mas'ale aad muhiim ah weeye. xildhibaanadii siyaasiyiintii ka soo qayb galay kulankan ayaa waxaa ka mid ahaa Daahir Maxamuud Geelle, Axmed Cawad Cashara, Maxamed Guuleed Gacmo Dheere, Professor Gandhi, Dr. Cali Khaliif Galayr, Ismaaciil Hurre Buuba iyo weliba mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan. dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in kulamo sidan oo kale ay ka qaban doonto dhammaan goobaha ay Soomaalida ku sugan yihiin gaar ahaan dalka Soomaaliya si loo fahamsiiyo dadka waxa uu dastuurku yahay ka hor inta aan la hirgelinin. Maxamed Cusmaan Xabiib, Royal TV, Nairobi.